السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، dhalinyaro iyo maamulba dadka jaamacadda jooga iyo guud ahaan culimo iyo dowladba dadka gobolkan u dhashay jooga waa u mahadcelinayaa soo dhoweynta ballaadhan iyo sida mugga leh ee gacmaha furani ku jirtana loo soo dhoweeyey. intaa kadib wakhtigoo iska cidhiidhiya waxaan tilmaami doonaa darsigan lay dhiibay cinwaankan mas-uuliyat الطaalib الjaamiciy fi اlmujtamac. etigaasi u dhaxeeya markaa labadaa wakhti ee ummade ay leedahay. ardaygaasi markaa xilka koowaadee saarane wuxuu yahay inuu huwiyadu waa identity, waa af soomaali waxa lagu garta cid, waxaa cid calaamad u ah, dhaqan u ah, diin u ah, taariikh u ah, af u ah. waa identityga ummade ay leedahay. identitygii ama baadisoocdii ummaddu ay lahayd ee lagaga garanaya ummadaha kale waxaa la rabaa inuu ilaaliyo, kadibna uu ku kororsado inuu tasallux bilcilm, aqoon inuu isku hubeeyo si uu mustaqbal cusub u waajaho. marka waxaan leenahay xilka koowaadee saarani waa dhaqankiisa iyo diintiisa inuu haysto. inta ugu badan leh ardaygu inta uu heerarka hoose waxbarasho ku jiro, secondary wixii ka sii hooseeya, waxaad mooddaa inuu talqiinka aqbalo in wax loo sheego. laakiin markuu heer jaamacadeed soo gaadho waa heer qofka maskaxdiisu ay bislaatay oo inuu wax baadho ama wax niqaasho ama ka doodo ama shayga angalis tiro badan leh, dhinacyo tirada badan leh uu ka eegaba bilaabanta. waxaa kaloo bilaabma waa wakhtiga uu u furmo afkaarta caalamiga ah. waa wakhti luqadiisu ay dhisantay oo afafka ajanabi wixii ku qoran uu akhrii karo. waa wakhti uu yimi meel cilmi lagu hayo. jaamacadku sidoodaba waa almacaarik alfikriya, waxa meelahay ka dhacaan waa dagaalada fikirka ku saabsan iyo aqoonta ku saabsani waa dhulka uu yaallo. ardayguna haddii uu waxaa la kulmo isagoo madhan u ambadaa. waana arday badan wixii ku dhici jirtay. arday badan oo soomaaliyeed halkan markay iska joogeen ama masaajidka iska geli jiray ama dad iska masaakiin ahaa. jaamacadda dee waddanku muu lahayn waagii hore, dabadaha loo diri jiray. dabeetana baddaas buu galaa, isagoo aan kiiba ahayn buu soo noqdaa. waxa koowaadee uu lumiye uu yahay identitygiisa, isagoo soomaalinimadaba ka faanaya ama af soomaaligu wax liita la yahay iyo inta ku hadasha, ama dadka masaajidka ku sii socda ay leeyihiin iska dadaan shaqo waayey, dadka intii shaqo weyday inay xagga ku socoto. waayo wuxuu soo lumiyey waa identitygiisii, wuxuu bini aadam kale kaga socnaa. waxaan leenahay markaa ardayga jaamiciga waxaa saaran marka koowaad inuu identitygiisa sugo, kiisa caqiideed, kiisa fikradeed, kiisa ummadeed, kiisa afeed. waayo waa inaad sumad iyo sawrac yeelataa. bini aadamku wax isku jira, waxna wuu isku darsadaa bini aadamku, waxna waa u kala soocan yihin. sidaa awgeed maadaama aad timi goob dagaal, haddaad goob dagaal adigoon qori sidan dee tagto waad jabaysa. waxkaa maaha. goobaha fikrigu waa goob dagaal, laakiin rasaasta ka dhacda waa aqoon ee maaha qori iyo muruqtoona maaha. adoo madhan haddaad timaaddo markaa waan diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaagu sugnayn waad ambanaysaa. waxaanad noqon doontaa markaa
kuwii baaba'day waa kuwo wixii ay shaqaynayeen uu lumitaan noqday iyaguna ismoodaya inay fiican yihiin iyagu wax ismoodayeen inay fiican yihiinoo dee wuxuu ku wadaa inuu aqoon-yahan noqdo oo dadka waxbuu u sheeganayaa laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanu aqoon-yahankii la rabay aanu ahayn dad aakhirada weyda dee wax walba weyda qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إلهي وحولي كوة خسارة وكوة نفي أهل بوايا مالت قيامة وارتصم بان خسارها وينبو الله تلمامة سبحانه وتعالى أيها الأحبة أغونت مركة ودنا وحي لي وحي لي educational policy aqoonta marka la qaybinaya siyaabo badan baa loo qaybiyaa mar academically baa loo qaybiyaa marna waxa loo qaybiyaa view-ga ama educational policy-ga dawladdu ay leedahay haddaynu aragtiyaha dawladda ku eegno aqoonta saddex qaybood bay u qaybiyaan saddexdaa qaybood waddan waliba qayb wuu qarsadaa cidna uma sheego waa mamnuuc qaybna sankaa la iska geliyaa oo waddan waliba free buu bixiyaa lacag buu ku daraa qaybna waa la kala iibsadaa qaybta koowaad waxay yidhahdaan waa alculuum asiyaadiya sovereignty waa aqoonta keenta dunida inaad hoggaamiso dowladaha dunida hoggaamiya aqoonta ay ku hoggaamiyaan aqoontaa la isma siiyo waa wixii ku saabsan culuum alfadaa cirka iyo waxa loo dirayo waa wixii ku saabsan nuclearka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan culumta hubka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan oo dhan aqoonta inuu waddan dunida hadheeyo oo ka xoog bato muruqa dowladnimo waxa soo saara taas laysma siiyo bale waxay yidhaahdaan basaasida dunida ugu badan leh taasay ka dhacdaa basaasnimada hay-adkan intelligencku ay u samaysan yihiin dunida waxa ugu badana ay qabtaan waa inay technology xadaan weliba kuwa isxadaa waxay u badan yihiin kuwa saaxiibada ah yurub iyo maraykan baa isxadaya inta saaxiibadaabaa isxadda saa awgeed aqoontaasi iyadu waxa weeyaan aqoon xoog lagu ilaaliyo oo dawlad wal iyo dal waliba uu ilaashado aanu cidna u ogolaanin laa tucطa walaa tushtara lamana bixiyo lamana iibiyo waa laga yaabaa productkeeda in lagaa iibiyo laakiin iyada lama iibinayo dayuurad waa lagaa iibin karaa brogaraamada qaar laga nuqsaamiyey oo mar kasta aad iyaga ku xidhaanayso u baahanaysid waa dunida sa isticmaalaa dayuurada FAD F-16 F-35 baa lagaa iibinayaa laakiin rasmi maaha brogaraamada rasmiga ay kuma jiraan waxaa la iibinayaa iyadoo maxay iyadoo nusa qoloftii iyo duulimaadkii xoogan waa leedahay laakiin waxyaabaha qaarkood lama socdaan culumta qaybta labaad waxay yidhahdaan waa culumta cid waliba ay deeqsiga ku tahy waa culumta waddan waliba uu isku dayayo dunida inta kale inuu gaadhsiiyo waa aqoomaha ku saabsan alhuwiya wadaat identityga iyo dadnimada u ummadda ay leedahay waa diinta waa afka waa dhaqanka waa aqaafaadka iyo cultureka waa taariikhda ummad waliba deeqsiin bay ku tahy sidaa daraaddeed safaaradahan dunida haddaad tagto safaarad kasta waxay leedahay xafiis cultureka ku saabsan oo afkooda iyo ammaanta waddankooda iyo dhulka loo maxaa la dhahaa tourismka lagu tagay konton brojiray ku sii siinaysaa haddaad safaaradda tagto oo ku saabsan un waddanka dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo afkiisa iyo wixiisa ku saabsan waddan waliba inuu kiisu faafaa buu jecel yahay markaa waddan waliba inuu kiisu faafo faransiisku inuu dunida o dhan faransiiska dhigaa buu jecel yahay luqada faransiis inay noqoto ta saytaraysa ingiriisku in luqada ingiriis saytaraysaa buu jecel waddan waliba afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo taariikhdiisuu rabaa dadka kale inuu baro
inagu dhibtayna haysataa waxa weeyaan inaynu faafino keena daayo waynu ka faanaynaa af ingiriisigana cilmaynu haysanaa af soomaaligana baadiyanimo saxiga maaha yani afku waa waxa lagu qoro ee isagu kuma saabsiisana af waliba wuu noqon karaa mid cilmi sida wuxuu kaloo noqon karaa mid jahli sida waa dadkiisu siday ka dhigaan marka qaybtaana dadka cid walba waa la siiyaa qaybta saddexaad ee markay qaybinayaan ay tilmaamaan waxa weeyaan waa qaybta mushtarak bayna albashara bay dhahay waa qaybta dadka ka dhaxaysa ee inta badan jaamacaadka laga iibsado aad lacagtaada ku dhigan karto jaamacaadka dunida ku yaala taa doontaba haddaad imtixaanaadka ay u baahantay inay ka soo gudubto lacagtaadana aad haysato waad dhigan karaysaa waa qaybtan ku saabsan handasada caadiga injineerinka طibka dhakhtarnimada dhaqaalaha siyaasadda maamulka qaybahan inta badan la dhigo iyagu labada kooxood kooxna kama tirsana intan la isugu deeqee badanna kama tirsana haddii aan dan laga lahayn intan la qarsadana kama tirsana laakiin waxay ka mid yihiin inta bini aadamku wadaago haddaba dunidu tanaafus bay ku jirtaa loolan bay dunidu ku jirtaa kownkan ama universekan aynu joognaana waa khasaanad sir badan sida khasnadaha waxa furaana waa cilmi ciddii cilmigaasi ka seexata cidlay ku soo dhacda ciddii u dadaashay isku dayda inay furtaana cir iyo dhul iyo bad iyo korkiisa dhulkaba way ka faa'iidaysataa innagu weli waxaynu ugu nool lahay sidii ilaahay u abuuray wixii alla ku aasayna waa ku aasan yihin waayo wixii furaahu noqon lahaa baynan haynin geedaynu ka jarna mooyane dee geedba kuma kordhino marka innagu sidii rabbi uu inoogu abuuray baynu u dul joognaa haddaba waxaan leenahay ardayga jaamiciga ah xilka koowaad ee saarani waxa weeyaan waa inuu identityga ummadda ilaaliyo waa xilkiisa koowaad waa inuu identityga ummadda ilaaliyo isaga waa aqoon-yahana xilkiisa labaad waxaynu leenahay saarani markaa wuxuu yahay atasallux bilcilm inuu cilmiga si dhab ah uu u qaato oo si dhaba maxaan uga jeedaa waa inay ardayga ka muuqataa aljiddiya walitqaan inuu si dhaba wax u baranayo ma aha inaad sugto shahaadatu zuur intaad ka helayso shahaadada beenta ah waraaq hadhow aad dadku tidhaahdo jaamacad baan ka imi waa shahaado beena markaa waa markhaati beenaale laakiin waxaynu u baahanay inaynu itqaanino inaynu sugno aqoonta sugista aqoontu waxay u baahan tahay dee dadaal badan waxay u baahan tahay inaad wax fahamto waxay u baahan tahay alistaycaab inaad isku daydo inaad koobi karto waxay u baahan tahay inaad digest inaad hadmiso calaaliso burburisid intaa kadib baad ibdaac iyo ibtikaar samayn kartaa waxa jira markaad koobto ee cuntee calaalisee si fiican u qaadatid kadib baad samayn kartaa maxay wax soo saar iyo ibtikaar iyo invention iyo wax cusub haddii laakiin ay noqoto muqararaad la qaybo waxaa la yidhahaa waxoogaa waraaqo yararoo aad brofessorka afkiisa intaad ka qorqorto aad soo xifdido hadhowna imtixaanka aad ku dulma tagto ku tuftid dabeetana aad tidhaahdo khalaas waa iska tegey wakhtigiina waad iska khasaaraysay ummadda hantideediina waad khasaaraysay adna waxba maad kororsanin sidaa awgeed jaamacaddu waa meesha ardayga daaqadiisa enerjigiisa aqoontiisa waa meesha qarxisa waxaynu u baahanay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinah xadiidka xasankaa wuxuu nabigu tilmaamaya ilaahay wuxuu jecel yahay
midkiin hadduu wax qabto inuu si fiican u qabto 4 sannadood 5 sannadood 6 sannadood 7 sannadood oo cimrigaaga ka mid ah ayaad joogtaa jaamacad hadhowna marartu walaa adri inaad noqoto waa 7 sannadood oo cimrigaaga ka mid ood lumisay inaad lumiso maaha ee waa inaad waxaad u soo baxday waa inaad itqaanisaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faraya waxyaabaha ugu liitee la qabtaa waa neef xooloo la gowraco soo maaha war xataa haddaad neef gowracaysaan si farsamaysan oo wanaagsan u gowraca buu nabigu leeyay waxaad samaynaysaa xataa hadduu dil yahay wuxuu nabigu leeyay in allaha tabaaraka wa tacaala kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u qoray shay kasta alixsaan in lagu sameeyo faidaa qataltum faaxsinuu lqitla war haddaa wax dilaysaan si fiican u dila buu nabigu leeyay waidaa dabaxtum faaxsinuu dibxa haddaa wax gowracaysaan si fiican u gowraca waliyuxid axadakum shafratah midkiin hadduu rabo inuu wax gowraco mididiisa ha soofaysta buu nabigu leeyay oo waliyurix dabixatah neefkan ha u raaxeeyo yuu nolosha ku silcini haddaad raawis intaad soo qaadato maanta oo dhan kirkirtid dee aakhira waa lagu qabsanayaa inkastoo neefku inaad qalataa xalaal ku ahayd laakiin inaad cadaabtaa kuuma bannaanayn sidaa awgeed neef dilistii haddii la yidhi si wanaagsan u qabo aqoon barashadeed maxaad u malaynaysaa qofka muslimka ahi waa inuu wax itqaaniyaa itqaanku xaguu ka yimaadaa jaamacaduhu ma aha meel dadka lagu dhaamiyo ee waa meel caqliga lagu furo waa kala laba inaad u timaado inaad wax soo qaybtid iyo in madaxa lagu furo lagu siiyo mafaatiix ilcilm jaamacadda waxay bixisaa furayaasha laakiin guriga haddii furihiisa lagu siiyo aad geli weyda ka war hadaa lagaa raba inaad research garayso gurigan iyo waxa ku jira baadi doontid laakiin jaamacadda waxay kuu ogoshay inay ku siiso furihii aad iskaga furi lahayd qaabkii aad guriga kan u geli lahayd macluumaadkiisi iyo maabinkiisii bay ku siinaysaa dabeetana adaa lagaa rabaa inaad baadi goobtid waxa ku jiro aad eegtid waxay yidhaahdaan carabtu callimhu kayfa yastaad bay yidhahdaan faqiirka bay yidhaahdaan war ha quudinine sida loo dabto bar bay yidhaahdaan yacni qofka hadduu maalin walba markuu ku yimaado aad waxoogaa u dhiibto iyo haddaad barto sida loo shaqaysto keebaa midho badan haddaad qofka barto maalinta ku yimaado xabad kalluuna siisid iyo haddaad barto baddaa sida kalluunka loogala baxo adna wakhti yar bay kaa qaadanaysaa inaad barto inuu badda geli karo isna wuu kaa maarmayaayo bad dhan oo ilaahay abuuray buu helayaa inuu ku xoogsan karo sida awgeed tacliimtu waa nooca jaamacaddu waa nooca jaamacadda waxaa la rabaa in furo lagu siiyo laakiin adigu inaad noqoto qofkii soo jeeday ee librariga gelayay ee wax baadhayay ee wax baxsinayay qodobka labaad waxa weeyaan tuuganimadu ma bannaana ardaynimada honesty inaad mukhlis noqotaa baa la rabaa waxaan uga dan leeyahay imtixaan la soo xada iyo buug wax ku qoran inta la soo naqliyo macallinka loo dhiibay iyo dee dunida kale si ay isu baadhaabaa bay leedahay oo jaamacadka waaweyn ee dunida ku yaalla dee waxay leeyihiin brograamo ay iibsadaan oo sida google-ko kale ah algoritmkiisa leh oo waxaad qortay marka la geliyo soo saaraya inba meeshaad ka keentay inba buuggaad ka soo goysay hadduu waxaagu ka taambays ahaa oo aad buugganna in ka soo jartay kanna in ka soo jarto intaad isku rakibatay aad ka dhigtay adigu inaad qortay wuxuu soo saarayaa brograamkani inba xaggaad adigu ka keentay marka waad ceeboobaysa buugga ama inaad si cad u sheegtay inaad wax ka soo qaadatay ama dee idea unbaad qaadatay waa inaad adigu waxaagii samaysay laakiin inaad isku dhadhajiso innaga waxaa laga yaabaa inaynan brograamadaana haysan dabeetana arday tuugi inay soo baxdo unoo waxadda waxbaha xadin naftaadana waad khiyaamaysa
waddankana waad khiyaamaysa jaamacaddana waad khiyaamaysay bulshadana waad khiyaamaysay khaayinkuna ma guulaysto waxba tari mayso inaad la yidhaahdo imtixaanaadkii b balas iyo e balas buu ku baxay waxba tari mayso waxaad garanaysaa wax tara waxa aad garanayso ayaa waxaa wax tara saa daraaddeed ammaana alcilmiya wayna barataan oo itqaanka waxaa ka mida inaad wax sugto waxaa ka mida inaad ammaana cilmiya yeelatid inaad noqotid qof raba mukhlis ah oo waxaanuu rabo inuu barto daacad ka ah daacadnimadaas waxay keensanaysaa inaadad tuuganimada sii baran haddaad ardaynimada tuug ku tahay hadhowna de waad xadaysaa un meesha kale aad tagto faa'iido yeelan maysid waxaa ku habboontahay markaa si aad cilmiga u itqaanin kartaan inaad ammaanada barataan inaad honest noqotid inaad cheating samaynin waxadin waxaan intaa idin raacinaya marka labadaa qodob haddaa isla heshaan inaad huwiyadaada ilaashan kartid oo dee cilmaa yana lagu ilaaliyaa diintaada afkaaga dhaqankaaga inaad ilaashatid waxaad ku ilaashanaysaa waa aqoon inaad baratid dadku inta badan waxay u haystaan malcaamadii wixii uu soo maqmaqlay iyo xaafadaha wixii aad ka soo gaadhay ama reeraha wixii aad ka soo gaadhay inay tahay diintii rasmiga ahayd oo aad garanaysid wartaasi diin maaha diintu waa wixii kitaab iyo sunna sheegayaan aad si fiican u fahamto waxay dhahaa kitaabka qur-aani waa buugga doonida loogu akhris badan yahay looguna aqoon daran yahay bay yidhaahdaan labadaasi may wada qabataa imise muslimaa faatixada akhriyaad u malaynaysa soo ma badnaa imise faatixada macnaheeda yaqaana waa mid subxaan allah ummaddanoo faatixa akhriyayso habeen iyo maalinba wado aan haddana garanayna waa wax cajab ah yani waa dhibta ina haysataa faatixa macnaheeda inuu bartaa maxay qaadan lahayd toddoba aayadood macnahood inaad barataa waqti intee lay bay kaa qaadan lahayd laakiin dee dhug baynan u lahayn waynan eeginba sidaa awgeed waxaan rabaa identitygu soomaali baan ahay iyo reerkayga muslim ha kuma sugmo haddii kale waa waxaan yararka hadda ku dhacee markuu gaalo facebook iyo meelaha kane waxoogaa doodoodayo oo khurafaad akhrinayo warko markiiba uu muran isla soo taago war maxaa inamadii ku dhacay mid wax sheegsheegay unbay soo maqleen run bay moodeen xataa bini aadamku war shakiga lama gudbiyo markaad yaqiin gaadhaa baa la doodaa haddii in yar laga soo shakisiiyo isna shakigii wuu soo doodaya shaki cilmi maaha waxaan leenahay markaa identitygiina wayna sugtaan war diintiina wayna barataan baranaysay haddana waxaan rumaysnay ma aqaano waa ceeb waa ceeb waan aqbalayaa odayga ama islaanta baadiye jooga haddii aqoontu ku yaraato waayo awalba iyaga wax looma dhigin waxoogaagoodu awalba cilmi dhagood buu ahaa cilmi dhagoodka in loo saxana waan ogolay laakiin adigu inaad tidhaahdo diintayda cilmi dhagood baan ku hayaa waa ceeb jaamacadna waan joogaa waxaan rumaysanahay ee aan adduunkan dhan ka rumaysanahayna waa cilmi dhagood waa ceeb runtii idan waa inaynu identitygeenna sugnaa kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadna waa maxay atasalluf bilcilm waa inaynan ka been sheegin waxbarashadee waa inaynu ka run sheegnaa mar saddexaad waxaan tilmaamayaa culumta marka la qaybinayo si kaloo loo qaybiyana waa jirtaa siyaabaha loo qaybiye kale waxaa ka mid ah culumta qayb waxay yidhaahdaan waxay ka warantaa qofka bini aadamka ficilkiisa qofka bini aadamka ficilkiisa waa culumtan dhaqaale ku saabsan siyaasad ku saabsan waa afcaasha bini aadamku uu samaynaya ka warantaa qaybna waxay ka warantaa bay yidhaahdaan maadada materialka oo waxaan physics iyo chemistry iyo waxaan materialka engineerka iyo waxa kan qaybna waxay yidhahdaan waa culuumi shariica innaga dhib bayna haysata wakhtigan dambe
وعيبه استعمال في نجيتك وحكمده قيب شريعة برطي ولكن قرني صدح يتبناد ميلادي النور هدو جوغا عندها ضدك الدنتيب وحكو أخريا سيكو كويسا وحكو معركو أو هبل كين ولا قورمة وحيو قريب دول تاقي تاسي واحد حل سيسا noloshii uu la nooliyay inaan waxba ka ogaanin kaasi waa qayb dadweynaheena ka mid ah aqoonyahankeena ka mid ah xagga kale cagsigana waxaa jooga mid injineer ah ama tabiiba ama siyaasiya ama dhaqaalayahana waan weysadu waxay ku burtaa aqoonin iyana waa ceeb labaad oo kasii darantii hore adduunna waxbuu ka og yahay salaaddu waxay ku burtana ma yaqaano ardada jaamacaadka ee cusub ee wakhtigan nool ee fursadda helay hadday tahay cilmigu siduu u faafay hadday tahay nadka iyo waxa la haystaa waxaan leeyahay waxaan rabnaa ciddii kulmin lahayd waa ardayga jaamiciga ah waa qofkaasaa helaya fursaddii waxbarasho ku jira wakhti uu u xadiday inuu waxbarto jooga cimrigiisa markan waxbarasho ugu talagalay fursaddiina ay hor taallo si awgeed waxaan rabaa haddaad dhaqaale baranayso inaad kaloo ogaato islaamku muxuu dhaqaalaha ka qabaa maxaa xaaraana maxaa xalaala maxaa la ogoliyay labadaba waad baran karaysa waxaan rabaa haddaad siyaasad baranayso inaad ogaato aadanaha wixii uu taariikh soo maray iyo tajaaribtii bini aadamka inaad barato iyo maamulada iyo say u jireen iyo say u dhisnaayeen say wixii kaaga habboonaaye fanniga lagu dhigay inaad barato isla markaana inaad ogaato rabbi muxuu kaaga warramay kaaga sheegay ilaan qur-aanku wuxuu ka warramayaa boqorro gaaleed boqorro muslima nebiyo dad ay la dagaalameen gaalo guulaysatay muslim guulay waxoo dhan baa qur-aanka ilaahay kaga warramaya dhankan kalena inaad baxdidid maxaa qur-aanka ku yaala waxaan rabaa inaad tabiib noqotid dhanka kalena inaad baratid maxaa shareecadu ogoshay maxaan ogolayn waxaan rabaa inaad saydali noqotid farmacology inaad baratid laakiin inaad garatid dawada maxaa xalaala maxaa si xaaraana dadka dawo khamri ku jirto ma la siiya mise lama siiyo see wax loo samaynayo badiil meel helaya mise la heli maayo maxaa diintaadu ogoshay maxaanay ogolayn yani waxaa laga yaabaa maanta dawooyinka inoo yimaada culturiskay xataa ku salaysan yihin dawooyin baa jira dhadhanka loogu sameeyey waxaan xalaal ahayn iyadoo la eegaya culturkii dadka iyo si soo carruurta marka dawadooda had iyo goor wax macmacaan bay leedahay soomaa say u liqaan even the cultures baa lagu eegaa culturekan waa maxay dhadhamada u fiicana u yaqaana saaweed ummadii hore ee taariikhda islaamiga markaad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa caalim faqiih ah oo qaadiya xagga kana culuum alijtimaaciya wasiyaasiya hogaaminaya soo ibnu khalduun nin la yidhahdo ma maqashaan ibnu khalduun waxay yidhahdaan waa mu'asiskii koowaad ee culuum alijtimaaciya fi lcaalam awal kitaab waa muqadamadiisa yidhahdaan kitaab taariikhu qorayey kitaabka taariikhda uu qorayuu rabay inuu muqadamo u sameeyo kitaabkiisa muqadamada waxay dhahay xawaali 4 sannadood bay ka qaadatay inuu qoro kitaabka muqadamada uu qoray baa xataa maanta muslimku qiimaynta kitaabka ay siiyaan wuxuu kaga yimi galbeedka markay mustashriqiinta iyo kuwii galbeed akhriyeen ee buunbuuniyeen ayaa dib loo eego la yidhi waryaa show muqadamada waxbaa ku jiray si awgeed waxaan rabaa qaadi buu ahaa qaadigii sharciga ahaa ee maxkamadda islaamiga joogay buu ahaa ninka waxaan qorayana uu ahaa waxaan leenahay ibnu nafiis طبيب بوها وأول من اكتشف دورة دموية صغرى ليقوريك يروى أنك الدنيا بلا طلياني هو بين كي شيكتان أول رجل كتبتي سيبا الله يا بحثيسي شيغة الدورة الدموية الصغرى
إسلام كان فقيه شافعي منهاج كآخرية أبوها محي مساجد كآخرية وحلاني مركز دبوا النقطة ابن الرشد أما إمام الغزالي فقهاء هاي فيلسوفيارنا وهاي علوم الفلسفة المعلم الثاني بالغوث الإمام ابن رشد بعد أرسطو ونكي لباد بين هذا والشارح كتب أرسطو بيت الماما يوروب مركز أفكار أرسطو شرح أيوه أفيروس وحي بين هذا أفيروس وابن رشد إمام الغزالي وأول من إلهيات كاي ربيسنايين نقضية تهافت الفلاسفة قرية حق أنه فقيه هذا شافعية فقه هذا درجوا ويبوها ابن تيمية وأول كتاب لا يقانون معروفة والله تشكسك منطقة أرسطو نينكي كواد الردية الفكر التجريدي هذا أنا وفقيه حنبلية حان قدر لي وحي هاي ضد عصر وضع النور ضد أقونتي دوني دا مركا لغو هيينا أغا ابن الهيثم وأول رجل بلابي أوبتيكسكا قيبتا الله يقانبا فيسكسكا كترسا دوني دونا إلا هدي وحيسي أرضي أوبتي إسلام مركانا وعالم مسلمة إذا waxay muslimiintii hore dad kulmiyay saddexdan cilmiye ay sheegeen culumtan qofka bini aadamka iyo afcaashiisa ku saabsan human scienceska culumtan ku saabsan natural scienceska iyo cilmiga sharciga ee waxyiga ku saabsan ayay kulmiyeen halena ardayga jaamiciga ah waa cidii kulmin lahayd aqoomaha soo dhan halena wali أحد العلماء بوحده كتاب قرآني وكالقارب يلاهده إسلام مركا المساحة المكتشفة قليلة بوليه وقارطنا وإنت اللي أقادي ولي يرتهب التلمامية وهدي دائن الربنين إن القرآن كان سفي عن برا إلهي مركو ليه أولم ينظروا أما انظروا ماذا في السماوات والأرض إركي يبوكم بلايقوا في رصدا سيدنا بما وفير سنة هذين سيدنا بما وفير سنة وينو بحثين لهين دي وباري لهين ريسيرش بينو أبوري لهين أقوم بينو كيني لهين مشاكل كاينة هيستوى حكم ده إن بدن ما أنت الإعجاز العلمي فن اللي هذا شرع علماء يدرسه سواء هذا صوب النجار الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة معجزات كعلمي القرآن ككتير وكور رمي مثلا المها يصدوا أبو رمو مراحش أو المراء وقرآن حديث بكور رميه إن أقونت فلك قيب كمذا أقونت بطة قيب كمذا ولا صوب النجار هذا وحقيقة jirto cadaynaysa kitaabkan inuu xagga alle ka yimi marka muslimiintu way farxaan dhanka farxadu uu ka leeyahay dhankalena ceeb weeyaan xaguu ceeb ka yimi kitaabka sidato ka waramaya oo aad marka gaalku sheego tiraada allah waa ku qoraa kaygana hana ceeb ahayn kitaabka sidata inuu waxan sheegayo laakiin adigu aad ogaanayso marka Harvard University ay sheegtaad odhanayso waa kan waa ku yaala kaayagana ama jaamacadka dunidu markay sheegaan aad tiraahdo waa kan waa ku qoraa waa runtayo waa ku qoran yihiin laakiin adigu xagaad eegayso macnaheedu wax weeyaan waxaan kitaabka ku qoran umaynan xidhxidhan inaynu baadhno maynan baadi doonin sawgeed ardayga jaamiciga maanta jooga waxaan ka rabaa inuu noqdo qof علمي بارستيسو أي رسم نقطه أقونتيس الدينة أي رسم نقطه أقونتيس مادة أي رسم نقطه أقونتيس هيومن ساينس كوساب سنة أي رسم نقطه يسوي كأنا مركا ابتكار كي إنفنشن واحد هذا أقوليه كله بوقف سماوي هذا الله بقيمه قالوا واحد هذا هو عالم باحث محقق مرتب أنا عالمة
oo researcher ah laakiin wuxuu baadhaa wax la ogaa uun buug cusub buu qoray kan buu qoray laakiin wax cusub kuma yaalina wuxuu tartiibinaya wuxuu soo bandhigaya wuxuu fudaydinaya macluumaad hore u yaalay halay buuga kan دكتور هبل باقري هبل باقري وحق قرني وحرصوا بكم جيران inventions كم جيران لكن ومرتب لما هو معلوم محقق للتراث تراثي آدم بني آدم هو لهاب وحقيقينيا دبتنا أقون تالوم أما الشرحية أما فضيدينيا أما قابلو صوبرنيجيا ميثودولوجي بدليا أما سكستها واستعماله وحجري أيو صمينيا علماء برنوحنا هو عالم مستكشف ورسيرشر عالمة لكن وحو الربا وحو عسب إنو سوكر ليه وحو رلو يري ما هو مشغول ككوي وحو مشغول ككوي هاي وحو عسب إنو كيرو that's why دوني ده هرو مرتيادين بدنو مغشا invention عسوبة صوبة حكذا ده ركبا وحو مشغولة أدو هدارت كوا مشغولة هنا أنتي اللي يريون سيدا لو وروريتين ياتكو مشغول تهاي حبكيني ميسي مركاو حلانا هاي أقونت إنه وين يدافتا إن النقطة ضد مرتبين وحي الله الشيء ضد مسي في عنو صوبان دي كرامة لكن دي هدانا طابا دايجس كرينين تكلنا ما قاريسي هرسعتكم أي مني هذا ما هندي تنين دايجس كريسو لكن هم جاينا تسيدته إن هذا واحد صبصة ساري كرتي ولذلك رجعنا قلتوا دو سيدا وبورين أيها الدنيا ده واحد بورن كسيو كرنيه قف قرب بين هذا ما القرآن يكون يا إنتاسو إنفشن بولي كون يا إنتاس إنفشن كماها إنت تريوتو واحد يريد كشرينات كأنتو بهالكن صف ضد الله استعمال قرادات بدن كوكر بيسوي إنفشن عصب وهي وحبط فضاي ديسي أنا هرولي بين هذا هو حي يلا نبدأ بيعمل خضر صلاة markii la isku dardaray bay noqotay maxay hadda imika gaadhigi Mercedes ee dunida ugu horeeyay bal galayeen YouTube-yada ee kariyoonaheena ka dheereeya kariyoonkan gacanta ku riixna ka dheereeya waa saxan yar oo cidla yaala oo motor yari dusha ka saaran yahay oo dhugdhug horeeyo ilaa inta buu soconaya laakiin waxa la leeyahay waa gaadhigi ugu horeeyay dunida dhaqaajiso waa mucjiza marka saa loo eego indhaha maanta haddaad ku eegto waa waxba la'aan waa wax carruur samayn karto laakiin wakhtigaa wuxuu ahaa sida maanta halkan uu gaadhigu marayo nin intuu riyooday un kaa kama soo guurinoo kan ma imane maalinba bool baa lagu kordhinaya maalinba qasabad baa la rogaya maalinba waxuun baa la lahaa waxbuu fudaydinaya laakiin dadkan maalinba inta ku daray waxay ahayd dad rabay maxaan ku kordhiyaa maxaa horumar samayn kara إذا هو علماء لكن علماء مستكشفين وعلماء ربطة إنه يحكر بسه حلا نمرك هذا الدين تهينا قرآن كولي وحبا بين قد ضبالا والدنيا ديو سالون ولي كترسن هذا كون كتهينا ولي وحبا بعد ضبالا وحا بارانا ومسكح بن آدم مسكح ريوتو مسكحا كلا كفي علينا ما جرتيه عندي وضدا قادابه نتيجه وي غادا لكن هداد وضدا مري ويدو ديريون ميسد عينا كوسو وحيون ميس marka aniga kelmadayda maanta waxay ku saabsiisantahay oo kaliya jaamacad baa joogtaan waxaad tihiin mustaqbalkii ummadda jaamacadka marka dadku dhinac marayaan waa jaamacad baa dadkoo dhan yidhaahdaa marka waxay ka rajaynayaan dadku halkuu joogo intay ka qaaday inay hore u wadi doonto qofka rajadaa laga qabaana waa adiga ee jooga jaamacadda waa adiga markaa waxaan kaa rabaa saddexdaa qodobo kaliyaan maanta tilmaamee kow inaad hawiyadaada xejisato diintaada iyo dhaqankaaga iyo afkaaga inaad xejisato laba tasallux bilcilm aqoonta inaad isku hubayso oo qaadatid saddex inaanad taagnaanin uun baaxid ama muratib ama wixii hore loo yidhuunin wadwadayee hamigaa inuu ku galo inaad wax ku kordhiso
waanad ku kordhin kartaa ficlan waxaan rumaysanahay jinsiga soomaaliga la yidhaahdaa inuu yahay jinsi very intelligent IQ-giisu sarreeyo dad yar baa furas ka helay laakiin wax fiican bay sameeyeen dadkii furas ka helay ma aha kuwa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan war soomaalidu waa yuhuudda afrikaanka bay yidhaahdaan yani soo jinis bay rabaan inay u tilmaamaan waa dad aqoon fiican leh waa dad maskax furan laakiin waa dad jahli la han weyn ceebteenna waa taa waa kibirsannayo waa isla han weynahay waxna ma ogin waa ceeb yara saa daraaddeed meeshii furaha haysa joogtaan macallimiin iyo jaamacad iyo hanti laydinku bixiyey iyo dad raba inay wax idin baraan ba haysataan furaha qaato oo hore u socda sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin